kahor inta uu madaxweyne Farmaajo ka soo ambabixin magaalada Asmara ee dalka Eritrea ayaa waxa kulan laba geesood uu la qaatay madaxweyne Isaias Afwerki. labada madaxweyne ayaa qalinka ku wada duugay iskaashi ka yeeshaan arrimaha dhaqaalaha, difaaca iyo xiriir adag oo dhexmara shacabka labada dal. dowladda Eritrea ayaa sheegtay in Soomaaliya ay garab istaagi doonto iyadoo tilmaantay xushmadda dhuleed iyo midda madaxbannaani ee u haysa Jamhuuriyadda Soomaaliya sida lagu muujiyay warmurtiyeed laga soo saaray wada hadallada labada madaxweyne oo warbaahintu u akhriyay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle. dhinaca kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Asmara waxa uu la kulmay gudoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar. admiraalka ayaa sheegay in fursad u ahayd la kulanka madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in uu kala kulmay soo dhaweyn fiican isagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in dawladda ay garab istaagaan. madaxweynaha Soomaaliya oo wafdi rasmi ah halkan ku yimid runtii waanu kulanay waana markii ugu horeysay in madaxweynaha aanu kulanay chance fiican bayna runtii noo ahayd arintaasi. madaxweynuhu si fiican buu ii soo dhaweeyay waqtigii aanu isu helayna waxaanu ka wada hadalnay ummadda Soomaaliya sidii midnimadeeda loo xoojin lahaa ama xoog loo saari lahaa. shacbiga Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa midnimadooda inay xoojiyaan, midnimadooda iyo Soomaalinimadooda inay xoojiyaan. Soomaali dawladnimo la'aan ma fiicna, dawladnimo la'aan wax lagu gaari maayo. dawladda Soomaaliyeed in la xoojiyo, midnimadeedana in la xoojiyo, wada jirka ummadda Soomaaliyeedna in la xoojiyo. dawladna ma socon karto shacbi la'aan, shacbina ma jiri karayo dawlad la'aan. shacbigu waa inuu dawlad istaageero, midnimadiisana waa inuu xoojiyo. dawladdu inay guulaysato waa inuu shacbigu ku dadaalo. dawladduna waa inay ku dadaasho shacbigeeda siday waddo toosan iyo siyaasad toosan ugu hogaamin lahayd. waa inay dawladdu ku dadaasho, waa inay ku dadaasho. marka laba arrimood oo kala maarmaana weeye. shacbiga iyo dawladdu, shacbigu waa inuu dawladdiisa taageero, dawladduna waa inuu siyaasad fiican oo xakiima shacbigiisa ku maamulo. madaxweyne Farmaajo ayaa intii uu booqashada rasmiga ku joogay dalka Eritrea waxa uu la kulmay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool halkaas, kuwaasoo madaxweynuhu u ballan qaaday in dawladdu si dhow la socon doonto arrimahooda. iskaashiga iyo xiriirka u bilowday dawladaha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa u muuqda mid waxtar badan u yeelan doona arrimaha gobolka, gaar ahaanna halka labada dal ay kaga yeelaan qaaradda Afrika oo meelo muhiim ah. labada madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigiisa waddankan Isaias Afwerki ayaa muujiyay sida dhabaanshaha ay uga go'an tahay in shucuubta labada dal ay noqdaan kuwo iskaashi dhab ah oo dhexmara oo dhinacyada dhaqaalaha iyo weliba wax soo saarka ah. Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay arrimaha gobolka gaar ahaan bariga iyo geeska Afrikaba ku wajahaysay siyaasad furfuran oo ku dhisan dan wadaag iyo horumar. Ali Baashi Cabdullaahi, madaxtooyada Soomaaliya.